oo guux ballaaran hadda uu ka taagan yahay kala jab ku yimid xubnaha madasha xisbiyada qaran oo ku aadan ka qaybgalka shirkaas iyo xogo hoose oo aanu helnay ayaan idiin soo gudbin doonaa. dowladda Turkiga oo arrin khatar ku ah Soomaalida ka bilowday gobolada Soomaaliya, qax nooc cusub ah iyo qiyaano la sameeyey dad ballanta lagaga baxay markii Turkiga la geeyey ayaan idiin soo gudbin doonaa. Fahad Yaasiin kaamirada muxuu uga dhuntaa, maxaase qarsoon ee Soomaalida siyaasiyiinteeda uu kala kulmaa markasta. mid ka mid ah taliyayaasha saldhigyada booliiska ee magaalada Muqdisho oo ku dhaawacmay dagaal maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. xisbiga Sheekh Shariif hogaamiyena dacwadii ay gudbiyeen ayaa maanta si toos ah loo gudagalay. ballanqaad cajiib ah ayuuna u sameeyey gudoomiyaha maxkamadda sare xisbigaasi. Somaliland waxay wajahaysaa xaalad ay dad badan aqoon u lahayn oo deegaanada maamulkaasi ku dhaqana. rabshado bilowday gudoomiyayaasha mucaaradka oo gacmaha isqabsaday iyadoo xubno ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani xabsiga loo taxaabay. hogaamiye ka tirsana ururka Al-Shabaab oo Jubbaland ay soo bandhigtay saacado kadib xubno Jubbaland gudoomiye xaafadeedyo ka mid ah oo ku biiray dhanka Al-Shabaab. dhamaadka dagaalkii Puntland iyo dowladda federaalka u dhaxeeyay oo hadda muuqanaya. wasiir ka tirsan xukuumadda ra'iisul wasaare Kheyre oo dhexda u xirtay inuu heshiisiyo Farmaajo iyo Siciid Dani. magaalada Kismaayona amnigeeda waa uu sii xumaanaya xilli lagu dilay nabadoon caan ahaa. xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo si kulul arrimahaasi uga hadlay afkana furtay ayaan idiin soo gudbin doonaa. qodobada dibadda aad daawan doontaan hadduu Ilaahay raalli ka noqdana waxaa ugu dooroon xubno ka tirsan maleeshiyada kooxda Daacishta oo lagu dilay magaalada Kirkuk ee dalka Ciraaq iyo 10 qof oo lagu laayay xaflad ka dhacaysay California dalka Mareykanka. intaas waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn wararka warbaahinta xogta wararka daawadayaal saaxiibayaal. waa 18 bisha 11 ee November sanada 2019 aan ku bilowno. shir ballaaran ayaa la filayaa in dhawaan uu dhex maro madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda hoggaanka u ah mucaaradka dowladda ka soo horjeeda. xogta wararka ay ogaatay ayaa sheegay in kala qaybsanaan baahsan uu hadda soo kala dhex galay xubnaha madasha xisbiyada qaran. macluumaadka ayaa daboolka ka qaadaya in kala qaybsanaanta ay soo ifbaxday kadib socdaalkii Fahad Yaasiin ee xarunta madasha uu ku tagay toddobaadkii la soo dhaafay lana kulmay Sheekh Shariif Sheekh Axmed. taliyaha sirdoonka Soomaaliya ayaa la kulmay madaxweynihii dowladdii ku meel gaarka haddana ah hogaamiyaha madasha. xogtan ayaa sheegaysa in tuhun uu soo kala dhex galay xubnaha madasha gaar ahaan mowqifka Shariifka, dalabka iyo weliba xogta shirka. Fahad ayaa u gudbiyey codsi ka yimid madaxweyne Farmaajo kaasoo ahaa inay wada kulmaan maalmaha soo aadan. haddaba waxaa laga digayaa shirqool loo maleego dowladda federaalka ay u maleegto dowladda federaalka ee Soomaaliya madasha xisbiyada qaran. qorshaha cusub ayaa waxaa la sheegayaa inuu daaran yahay ama uu ku saabsan yahay sidii uu sumcad dil ugu samayn lahaa madaxweynayaashii hore ee dalka. macluumaadka ayaa muujinaya in istaraatiijiyad cusub ay tahay in loo dhigo dabin siyaasadeed gaar ahaan dhanka qabiilka ama beelaha ay ka soo jeedaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya. si gaara waxaa la sheegayaa in looga digi doono dhanka maamul goboleedka Galmudug waxaa haatan ka taagan doorasho adag taas oo mucaaradka iyo xukuumadda ay isha ku wada hayaan. qaabka ay noqon doonto doorashada Galmudug ayaa waxaa weli ka taagan calaamad su'aal xilli la leeyahay Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud waa ay ka diideen dowladda in ay marto nidaam aan iyada lagu waafaqsanayn doorashada guud iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada kuwa laga qabanayo. qaybaha hore ayaa daawanaysaan warbaahinta xogta wararka. dagaal geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa uu maanta ka dhacay xaafad ka tirsan degmada Hiilwaa ee magaalada Muqdisho. waxaana dagaalka uu dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka gaar ahaan booliiska iyo weliba militariga. dagaalka waxaa la sheegay in uu ka dambeeyey kadib markii ay isku dhaceen ciidamada booliiska ee ku sugan saldhigga degmada Hiilwaa iyo kuwa militariga, taasi oo salka ku haysa arrimo la xiriira isqabqabsi dhuleed oo deegaanka ku yaala. waxaa la sheegay in xaafadda Gumbacoole oo degmada Hiilwaa ka tirsan 2 askari ay ku dhinteen dagaalkana halkaasi uu ka dhacay. waxaana askarta dhintay ay ahaayeen kuwa ka tirsanaa militariga dowladda federaalka. waxaana ku dhaawacmay taliyaha saldhigga booliiska degmada Hiilwaa Cali Culusow.
maan markii ugu horreysay oo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ay ku dagaalamaan qaybo ka mida magaalada muqdisho. waayahan dambe waxaa socday qorshe la doonayay in lagu sameeyo maamulka madax bannaan inuu noqdo Puntland. beelaha warsangeli iyo dhulbaantana ay ku bahoobayaan. hase ahaatee Maqir State ayaa u muuqda in si hoose hadda loogu dhawaaqay inkastoo Puntland ay wax walba oo soo kordha la socoto. waxaa ciidamo ka tirsan dowlad goboleedka Puntland maanta Isniin ah ay xabsiga u taxaabeen gudoomiyihii gobolka Sanaag ee maamulka Maqir Qadar Xaaji Xarigle. Puntland oo ka duulaysa ka hortegidda arrin ay sheegtay in muhiimad gaar ah ay siinayso jiritaanka Puntland qaybta ay Sanaag ka maamusho oo maamul kale aysan ka ogolaan doonin. Qadar Xaaji Xarigle ayaa shalay Axaddii warbaahinta u sheegay inuu yahay gudoomiyaha gobolka Sanaag ee maamulka Maqir xilli ay weli Puntland halkaasi ka arrimiso. siyaasigan ayaa fariin u soo diray madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya kana codsaday in gobolka Sanaag ay maamul u sameeyaan. hase ahaatee hadalkaas awgeed ayuu xabsiga u galay Qadar Xaaji Xarigle maanta iyadoo hadda uu ku xiran yahay magaalada Badhan ee gobolka Sanaag. dacwadii ay soo gudbiyeen xisbiga Himilo Qaran ayaa maanta loo fariistay, taas oo la leeyahay waxa ay weji kale u rogaysaa dagaalkii siyaasadeed ee mucaaradka iyo madaxda dowladda waayahan ka dhex jiray. ilaa lagu kala soon yahay ayaa xogta wararka u sheegay in maxkamadda ay xaqiijisay dacwaddaas in la dhageysto oo la bilaabay iyadoo gudoomiyaha maxkamadda sare garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed uu madasha ku sugnaa. xubno ka socday wasaaradda duulista hawada Soomaaliya oo si gaara dacwada looga keenay ayaa maxkamadda joogay iyo xubno ku matalayay xisbiga Himilo Qaran dacwaddaasi. gudoomiye Baashe ayaa ku celiyay inay xaq u leeyihiin xisbigaasi dacwadooda sida ugu cadaaladsanna loo qaadayo. waxa uu meesha ka saaray inaysan jiri doonin wax la yiraahdo iyo in ay la saftaan hay'adda fulinta xukuumadda Soomaaliya, waayo wasaaradda la soo dacweeyay xukuumadda ay hoos tagtaa. go'aanka iyo waxa uu noqdo ayaa laga sugayaa maxkamadda sare ee dalka iyadoo xisbiga Himilo Qaran ay isha ku hayaan waxa soo bixi doona. dowladda Turkiga waxaa la xasuustaa in Soomaaliya sanadkii 2011 ay ka bilowday caawinaad dhab ah iyo isgarabtaag muuqda oo ay dadka Soomaaliyeed u fidisay. hase ahaatee Turkida waxaa la arkayay shirkado Soomaali ah oo dalkeeda ku sugan isla markaana qaxinaya dadka Soomaaliyeed oo magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka meelo ka mid ah ku qasbay in qoysas badan guryahoodii iibiyaan una guuraan dalka Turkiga. kuwa kale ayaa waxaa halkaas ay ka iibsadeen guryo. dowladda Turkigana ay u ballan qaaday haddii guryo ay iibsadaan si bilaash ah dadkooda ku sugan Soomaaliya loogu qaadayo. waa wax wanaagsan in qofka waxbarasho ama cilmi kororsi kale uu dalka Turkiga u tago. hase ahaatee waxa ayaan daro lagu sheegayaa in ku noolaanshiyo dalka kale ee Soomaalida la jeclaysiinayo lagana qaxinayo wadankooda. waxaana qof lagu kalsoonaan karo oo arrintaas u dhabagalay uu soo bannaan bixiyey arrintan, isla markaana sheegay in qoysas guryo laga iibiyey oo haddana dalka Turkiga la geeyey ay waayeen ballantii laga qaaday oo shirkadaha Soomaaliyeed xiriirkana la leh dowladda Turkiga ay sidaasi sameeyeen. ballanka baxna lagu sameeyey. Turkiga weli arrintan eedda ah ee loo jeediyey kama aysan hadlin iyada oo xaaladdu ay u muuqato waayahan dambe mid aad loo hadalhayay. xogta wararka ayaa daawanaysaan. maamulka Jubbaland ayaa waxay soo bandhigeen sargaal ay sheegeen inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab isla markaana uu dhankooda ku soo biiray. waxay jawaab u tahay gudoomiye xaafadeediyo maamulka Jubbaland dhanka degmada Buulaxaawo ee gobolka Gedo ka tirsanaa oo dhanka Al-Shabaab saacado ka hor ku biiray deegaanka Ceelcadana lagu soo bandhigay. inkastoo taliska nabad sugidda maamulka Jubbaland ay sheegeen ninkaas shabaabka amiiradooda ka mid ahaa uu dhankooda ku soo biiray, haddana ilaa hadda ma hayno war sugan oo dhanka shabaabka ay ku beeninayaan ama ay ku rumaynayaan. Rayaan Sheekh Nuur Abu Xamse ayaa lagu naanaysi jiray, waxaana uu ka mid ahaa Al-Shabaab kuwooda saameynta ku dhex lahaa gobolka Jubbada Hoose. waxa uu ahaa madaxii gaadiidka Al-Shabaab ee gobolka Jubbada Hoose sida la sheegay. taliska nabad sugidda Jubbaland ayaa marar badan soo bandhigay saraakiil iyo dagaalyahano ay sheegeen inay ka soo goosteen dhanka Al-Shabaab. xubnaha ka soo goosta ayaana qaarkood ku biira nabad sugidda maamulka Jubbaland. qaybaha dhexe ayaa daawanaysaan warbaahinta xogta wararka.
rabshado xoog leh ayaa laga soo sheegaya magaalada Hargeysa halkaas oo ay saacadihii la soo dhaafay ka jireen xaalad adag isqabqabsiga mucaaradka xisbiga wadani iyo weliba maamulka Somaliland ayaana waxa uu markii dambe isku bedelay rabshado abuurmay iyo kacdoon maamulka Somaliland lagu inqilaabayo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciro ayaa sheegay in xukuumadda Somaliland ay xilligan nabadda ku ciyaarayso isla markaana ay u adeegsanayso xisbiga ciidamo dawladeed waxa uu sheegay in xafiiska xisbiga la geeyay ciidamo fara badan sidaas ay taana xarunta xilliga uu tagayay lagu riday rasaas fara badan ha yeeshee mowqifkiisa aan waxba iska bedelaynin waxa uu sheegay gudoomiye Ciro in xubno ka tirsan xisbiga xabsiga loo taxaabay kaasi uu sheegay in ay tahay mid dimuqraadiyaddii muddada fog lagu soo taamiyey ay noqotay mid halbacal lagu lisay dhinaca kale Faysal Cali Waraabe ayaa la saftay Cabdiraxmaan Ciro eedeena u jeediyey maamulka Muuse Biixi hogaamiyo wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in rabshadihii dhacay halkaas ay laba qofood ku wax noqdeen oo dhaawacyo ciidamo fara badan oo booliiska ka tirsan ayaana amniga aad u sugaya inkastoo weli ay xiisad ka dhalatay wixii maanta dhacay weli taagan yihiin xogta wararka ayaa daawanaysaan dad badan ayaa laga yaabaa inay isweydiiyaan sababta markasta uu kaga dhuunto kaamarada taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir haddaba laba arrin ayaa midood lagu micneeyay waa midda koobaad in uu yahay shakhsi diidan in lagu fadeexeeyo kulamada uu yeelanayo ama in lagaga raadiyo sidaasna muuqaalka ama maqalka la duubo si fudud bulshada ay u gaari karaan waa midda labaad in la tilmaamay shakhsi u tababaran dhanka sirdoonka muddo badanna ku bixiyey muqaabaraadka iyo weliba arrimaha cilmigaas ku saabsan waxa uu Fahad Yaasiin sheegay inuu la kulmo haybsooc lagu sameeyo siyaasiyiinta qaarkood ayuuna sheegay si gaara sida laga soo xigtay dad uu la kulmay in ay ku ficlaan beesha uu ka soo jeedo oo ah mid aan awood badan ku lahayn beelaha dega Soomaaliya Fahad Yaasiin ayaa saxaafadda hore uga mid ahaa isagoo u shaqaynayay warbaahinta caalamiga ah ee Al Jazeera ka hor inta uusan siyaasadda ku biirin waxa uu ahaa madaxii ololaha Xasan Sheekh Maxamuud guushiisa sahlay 2012 laakiin sidii la rabay abaalkaas kagama uusan helin Xasan Sheekh oo xil uu raadinayay kama uu helin wuxuu ahaa madaxii ololaha doorashada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 2017 bilowgeedii waxaana lagu abaalmariyay xilal kala duwan oo hoggaanka madaxtooyada ayuu xil sare ka soo qabtay haddana waa agaasimaha sirdoonka iyo xuraanka Soomaaliya waxaana uu dawladda federaalka ka yahay shakhsiga koobaad ama mulkiilaha dawladda federaalka waxa uu yahay mid dawladda federaalka u soo jiiday dhaqaale badan oo wadamada Carbeed gaar ahaan dalka Qatar oo xiriir wanaagsan uu ka dhaxeeyo waxaana Fahad Yaasiin lagu tilmaamaa nin afgaaban isla markaana dadka sida ay u maleynayaan si ka duwan uu u dhaqmo siyaasad furfurnaan inkastoo kaamirada uu ka dhunto qaybaha dambe ayaan isla soo gaarnay warbaahinta xogta wararka xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa xaqiijiyay dilka nabadoon caan ka ah magaalada Kismaayo oo habeennimadii xalay halkaas lagu dilay waxa uu sheegay in nabadoon Axmed Abuulle Ibraahim uusan xilligan ku jirin wax siyaasada balse loo dilay arrimo la xiriira inuu ka soo horjeeday fikir ahaan maamulka Jubbaland si gaar ah Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe sida warku uu yiri xildhibaanka waxa uu Daahir Jeesow hadalkiisa inta raaciyay in nabadoonka dilkiisa aysan ka dambaynin ururka Al-Shabaab uuna sheegay in mararka qaar uu tago deegaanada ay maamulaan ha yeeshee dadka dilay la yaqaan cadaaladana la horkeeni doono sida warka uu u dhigay ninkan la dilay ayaa ahaa nabadoon waxaana xalay lagu dilay xaafadda Fiya Afmadow welina kama aysan hadlin maamulka Jubbaland hogaankooda iyo weliba laamaha amniga hase ahaatee dilkan ayaa qayb ka noqonaya dilal bilihii la soo dhaafay ku soo badanayay dad waxgalka u ahaa ganacsatada nabadoonnada iyo odayaasha dhaqankana lagu beegsanayay magaalada Kismaayo ee caasimadda kumeel gaarka ee Jubbaland inkastoo dilalkii hore maamulka Jubbaland ay sheegeen in kooxaha nabadiidka oo ay Al-Shabaab ula jeedeen ay ka dambeeyeen xogta wararka ayaa daawanaysaan
dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa hadda u muuqata mid guul weyn ka gaaraysa arrimaha la xiriira dadaalka ay ku bixinayso inay la heshiiso maamulka Puntland. wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya Cabdullaahi Cali Xasan ayaa waxa uu sheegay in hadda isku soo dhawaanshiyo fiican uu ka dhex jiro dowladda federaalka iyo waliba maamulka Puntland xilli maanta shir uu ka furmay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. dowladda federaalka ayaa shirkaas waxay kaga hadlaysaa wada tashiga shirkadaha ganacsi ee dalka iyada oona dad badan ay ku tilmaameen arrin muhiimad gaar ah loo siinayo kulankaas lagana faa'iideysanayo in la bedelo colaadda ka dhex jirta dowladda federaalka iyo maamulka Puntland. ila kale ayaa sheegaya in wasiirkan oo deegaanada Puntland ka soo jeeda uu ballan qaaday in uu heshiisiin doono maamulka Puntland iyo madaxtooyada Soomaaliya si loo dhameeyo buu yiri ismarwaaga siyaasadeed iyo mugdiga waxyaabaha qaar ee soo kala dhex galay dowladda iyo dowlad goboleedyada gaar ahaan Puntland. senator Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole ayaana waxa uu yahay mid ku taageeraya qorshahaas inkastoo Faroole iyo Siciidani uu dagaal iyaga xitaa ka dhex jiro. halkaad warkaasi ka daawanaysaanna waa warbaahinta xogta wararka. markana qodobka dibadda. inta la ogyahay 10 qof ayaa ku dhintay kadib markii dablay hubaysan ay toogasho ka sameeyeen xaflad ka socotay California dalka Mareykanka. booliisku waxay sheegeen in ay tuhmanayaasha baadigoob ugu jiraan iyadoo 4 qof ay dhinteen 6 kalena ay dhaawacmeen kuwaas oo dadka dhaawaca loola cararay magaalada Fresno xafladda ka socotay gobolka California. toogashada Mareykanka waayahan waa ay soo badanayeen waxaana ilaa haatan dowladdu ay la kufo kacaysa sidii ay u xakameyn lahayd kuwa dilalka u geysta dadka